waa dhul kulul oo qoraxdu ay ku badan tahay deegaanada Soomaalida waxaana dhibaato ku haya abaaro soo noqnoqday balse Garowe ayaa isku dayaysa in adceeda iyo dabaysha ay uga faa'iideysato si ka duwan koronto laga dhaliyay qoraxda iyo dabaysha ay isticmaalaan shacabka magaalada Garowe inkastoo wali aan matoorada laga wada guurin warshadanna waxa ay shaqaynaysaa tan iyo horaantii 2016 waxay isticmaashaa afar qaybood afarta qaybood waxay u kala qaybsan yihiin matooradii oo markii hore kuwii waagi hore lagu shaqayn jiray system oo solarkii oo qoraxdii oo laga faa'iideysanaya system kale oo dabayshii oo laga faa'iideysanayo marawaxadihii iyo dabka soo saarayay iyo qayb kale oo kayd ah oo baterigii oo maalinkii markuu dabku soo saaraysa uu badan yahay lagu kaydsado ka bacdi habeenkiina dib looga isticmaalo oo matoorada lagu soo kabo soolaradan qoraxda dabka ka dhaliyo iyo dabaysha waxa lagu xiray qalab casri ah magaalada ayaana loo sii daayaa tamarta la kaydiyo waxa isku darsamaya laynkii dabkii matoorada ka yimid oo laynka ku soo halka kaga soo dhacay iyo dabkii solarka ka yimid oo laynka halka kaga soo dhacay saddexda kale u jeedo calaamad ku sawran tahay turbiinkuna waa saddexdii dabaylood ayaguna dabkooda hada arkaysa halka waxa weey inta kilowaad ay soo saarayaan frequency-gooda dabka guud ay sidaan transformerka ab ka dhigaya deedna ayaguna laynka halkaas kaga daraya balse maadaama aysan jirin warshado waaweyn oo korontadan isticmaala dhaqaalaha laga faa'iido waxa ay ku xiran tahay sida xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga ay u adeegsadaan subaxii dab badan ma qaadato hadda waxa 1.6 megawatt yani 1600 kilowatt laakiin habeenkii dab badan habeenkii